النبي صلى الله عليه وسلم عدنا عاين لا تسبن أحد عاين عدنا عاين أفلاقات دونين عرب كاقا إلالي عايدة إسكا إلالي لماذا؟ لأن أفحمد إيا عايد وحي كترجميسا الشخصية حمو أفحمد إيا عايد وحي كترجميسا ألا كفوغانشو أفحمد وحي كترجميسا أخلاق حمو نبي محمد وحى الله صدره صلوات ربي والسلام عليه إنه أخلاق ذا مديدة وناكسن دادك أردما يسترابره ودين الأخلاق سيداس درادد مركو دادك الدين تبرا يوم مباديدة وهو الرئيس وهو مريا وحا كمدا إنه دادك كلاها الله أخلاق ذا صدقك رنتا دورسونانتا محوها عدالة ساس درادد نبي وحوقب الله بعيدنها عاين عيد معها دقن مسلمها النبي صلى الله عليه وسلم ضبط الروح عيتمي اسكو افعليني افلقات دونياي لبا الشيطان وهذا الان قيمه لهين قيبسنايي لميديهين بيننا اسكو تورتوريا هذا الباطل ان قيمه لهين وداغايي لميديهين لبا الشيطان نوعاس او كلا ويان النبي صلى الله عليه وسلم عدنها عاين والنبي قال صلى الله عليه وسلم مؤمنكو مد افحم معها دبيعديس افحمو ما سميسنا مد لبادنا افحمنا اسكمر راديو فاحشكو ودبيعد اصلك افحم اصل ما متفحش كان waxa la yiraahdaa markuu la lahayn asal u lahayn laakiin iska doonayo iskamana doono asal la umale ma afxuma saas daradeed ba ummul mu'miniina Aisha radiyallahu ta'ala anhuma markay nimankii yahuudu nabiga u yimaadeen sallallahu alayhi wasallam ay ku yiraahdeen assaamu alayk geeri korkaaga ha ahaato oo Aisha intay fahantay ay ku tiri wa alaykumus saam wal la'na geeri iyo lacnadba korkiina idinka ha ahaato nabigu uu maqlay sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku yiri Aisha afxumadu ma fiicna fuxshigi afxumadu ma fiicna maxay tiri geeri iyo lacnadi korkiina ahaato daabu ku yiri yaa waayide ku leedahay waa yahuud oo nabiga aflagaaday sallallahu alayhi wasallam oo nabiga wax ka sheegay hadhiin buu nabigu sallallahu alayhi wasallam markaas waxay tii rasuulka ilaahay Soomaada maqlin waxay kugu yiraahdeen nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam oo adigu Soomaada maqlin waxaan ugu jawaabay nabiga jawaabtiisu ma ahayd wa alaykum assaam madhin wa alaykum intaas ugu gaabsaday sidaas daradeed diintu waa diin afka iyo qalbiga iyo xubnaha intaba daahiriso hagaajiso way la tasubbanna ahadan ninka saxaabiga markuu nabigu inta u dardaarmay radiyallahu ta'ala anhu arda sidoo u qaatay u fiirso wuxuu leeyahay maalinka wixii ka dambeeyay nabigu dardaaranka isiiyay waligay buu yiri intii muddada ka dambeysay ruux macaayin buu yiri ama xorha ahaada ama adoon ha ahaado hatta neef geeriyo neef ariya macaayin buu yiri xoolaha hatta nool waligay macaayin buu maadaama nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam cidnaha caayin salawaatu rabbi wa salaamu alayhi sidaasay ahaan jireeno markii amar rabbi yimaado ama amar rasuul yimaado markaaba way qaadan jireen